Apodario Sodo. ما شاء الله سودو هذا دمانتين ولا ليال إن شاء الله بالله الكريم عوان كانوا حويان شيخ شمس الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال دمانتين إن شاء الله waxaan ka hadli doonaa walaalkeen sheekhi maanta la yiri toogasho ayaa lagu xukumay sheekh Shamsuddin insha Allah iyo waxaan ka hadli doonaa bulshaweynta ama walaalaheen gabooye hadii Ilaahay raaho Jamiila soo dhaw samide aad ku salaamaya إن شاء الله بالله الكريم وحكوا صابسينها برنامج كينا ما أنتيتو شيخي أمد الصوماليات شيخي ولا لهنا الصوماليات ودبعتيسن وجرجاري جري شيخي هاسا مفلها أنا كان لفتك يا جميلة أهان والله من تامسيان لحريري قفار أقان أو قيمة بدن أو قالية أيها بودري ولا الأدب وسلام يا تانكي سوماج أيها وما توحى أنك الشك إيه نحرين إيه على الحمو نجوءة إلا إنه ما تيتو بتلام بتوجو شو حيكون حكومين شيخي وينا إيه شن غير كودي family 5 family شن قف أو هالفاميلية شن قف أو هري أبوه اللودلي شن قف أو أيجو فيكتم أو مركي هري تبع أيجا قف كود اللودلي إن كل أنا وشيخ وين دقيستي ما أنت قلبتها قف بقى يصدري وين دقيستي هذا الكيسة أصوغولي دولة ده يوم معمولك أنت بدن شيء كذا وحبك موجة معمولك بوتلان أنت بدن وحبك موجة ولي بمدحوينه موجة ولي بعقاش يوم محيتي إن محيتو إن أضياش قيمها لها أضي رقماتك ها مرور بعد ما توينك ووين وحكوجا عندي sida uu sheegay wuxuu yiri waxba kama oga waxa aniga madaxayga ka weyn oo kale idinkana isweydiineysaan nin yar oo ku jira xildhibaan ah sidee ayuu baawarka inta la eeg oo intuu warqad u soo sameeyay maxkamad u tago shan qof oo one family ah waa gumaad caadi ah shan qof oo one family ah toogasho ugu xukumi kara hal nin oo baar ku jiro maxay tahay baarlamaankooda ku jiro oo dawladdaas kamid ah oo maxay tahay ninkii wiilku adeerka u yahay la dilay ah inuu intuu warqad soo qaato koorti ka soo saxiixdo asagu kaligiis iyo maxay tahay qolo la socotaa go'aan soo sameeyaan xogaa la aluushiya lacag la kala qaato la dhaho reer dhan oo shan qof ah oo waliba sheekhi ummadda Soomaaliyeed oo dhan eeganaysay uu ku jiro ayaan maxay tooganeynaa waa wax cajiib ah waa wax aad u fool xun waa wax naxdin leh oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ka naxeen oo aan ka naxnay waxaan marka maanta waxba halkan waan kala hadlayaa dhamaan horta shicibka reer Puntland waxaan uga leeyahay meel kasto aad joogtaan arrintan ka istaaga waayo anigu waxaan aaminsanahay Puntland shicib Soomaaliyeed kii ugu qiimo badnaaba ku nool iyo kii ugu qaalisanaa kulli Soomaali waa qaali laakiin shicibka Soomaaliyeed reer Puntland mar walba ummadda Soomaaliyeed oo dhan bay u taagan yihiin reer Puntland markasta waxay jecel yihiin wanaaga ummadda Soomaaliyeed iyo isku xirnaanshaha ummadda Soomaaliyeed iyo dib u heshiinta ummadda Soomaaliyeed iyo dal iyo dad marka waxaan leeyahay shicibka Soomaaliyeed ee ku nool Puntland ayaana heerkaas gaaray shicibka Soomaaliyeed ee ku nool Puntland weeyo kuwa Puntland oo dhan dhisay kuwa shicibka Puntland ee ku nool Puntland weeyo kuwa horumarka maanta ka muuqda Puntland sameeyay waxa kasto xumaan ahna ayaga ayaa ka soo horjeestaa wax kasto oo wanaagana ayaga ayaa sameeyaan marka aniga dardaarankayga iyo codkayga maanta wuxuu rabaa inuu gaaro walaalayaal aan ku codsanaya inay gudbisaan dhamaan shicibka reer Puntland ee ku nool soona Puntland oo dhan qabiilkay rabaan ha ahaadaan sheekadan sheekheena sharafta lahaa oo qiimaha lahaa oo weligiis ahaaba sheekhi ugu horeeyay
maxay tahay ummadda Soomaaliyeed ee dhibaataysan sadaqada gaarsiiya ee samafalaha ahaa kulligiin meel aad joogtaan tuulo haddaa ku nooshihiin iyo haddaad baadiyo ku nooshihiin iyo haddaad bariga ku nooshihiin dhammaan reer Puntland arrintan waa inay ka istaagaan shicibka sharafta leh ayaan la hadlay dhammaantood waa inay ka istaagaan waana inay meel saaraan waayo lama sheegin family 5 oo hal reer ah oo shal aabahood la soo dilay oo magtoodii loo diiday oo haddana hal meel lagu tooganayo waa wax caqligaas aan geli karin waa maanteeto inuu maxay tahay Sheekh Shamsuddin carro oo dhaho oo waan baxsaday because waxaan raadinayaa waxaan u tagay garaadkii inuu maxay tahay ibadbaadiyo ilaahay baa wax badbaadiya laakiin that's so wrong that is so wrong tan waxa waa wax ummadda Soomaaliyeed ay meel inoogu wada qoran kulligeen haddaan ka aamusno ama bari joog ama Boosaaso joog ama Puntland joog ama maxay tahay koonfur joog ama xamar joog ama meel lan joog tan waa mid test waa nala ku eeganaya waa nala ku fiirinaya ma dhici karta tan wax dhici kara ma aha marka waxaan leenahay shicibka ummadda Soomaaliyeed ee ku nool shicib weynaha Puntland arrintan degdeg waa inaad ugu istaagtaan waana in aad maxkamada iyo wax dib isu arag iyo dhaqankii wuxuu ahaan jiray dib loogu noqdo arrintaani hal reer oo isku qoys ah oo awalba ayaga la gumaadi jiray oo awalba inaga Soomaali haddaan nahay dambi badan laga galay oo awalba ayagu ahaa victim reer ahaan in haddana victimkii dhexdooda intii la soo galo laba victim laga sii dhigo waa khalad Soomaaliya waa khalad Soomaaliya inaga haddaan Soomaali nahay waxa inoo rogaya waxa weeyaan jareer weyn xamar caacad maxay tahay dadkii banaadirga loo yaqaanay oo asalkii banaadir ahaa maxay tahay gabooye waa dadka mar walba maxay tahay dulmanaha oo aadka loo dulmo walaalkaas walaal aan jeclahay sheekhaas aan jeclahay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa igu og inaanan aqoonin qabiilkiisa iyo qolow yahay midna inaan ogaano haddana I don't want inaan ogaado mana rabin ma fahanteen laakiin waan qaracmay maanta markii uu hadlay oo uu yiri maxay tahay anigu waxaan ahay maxay tahay dadka meesha looga badan yahay no qof Soomaaliya kama badna qof Soomaaliya kama qiimo badna qof Soomaaliya nafta looma gelinin different than the other person nafta Ilaahay subhanahu wa ta'ala kulligan sibuu noo wada galiyay kulligeena Ilaahay sibuu nooga wada qaadaya kulligeena Ilaahay bil aadan yar oo laciifa oo waxba ahayn oo aan qiimo lahayn oo maxay tahay musqushaasna taga neefsada kaliya ayaan nahay wax aan nahay ma jirto marka ummadda Soomaaliyeed ay shalay ayaan ka hadlaynay walaalkeen shaasha inkastoo aan aad ugu mahadcelinayo maxay tahay state kaas oo wiilka lagu xirtay oo maantana la soo daayay aad ayaan ugu faraxsanahay alxamdulillah laakiin tan waa wax ifrdhay joogta waa wax maalin walba dhacda waa wax 27 years soo dhacaysay waa wax 27 years lagu soo sameeyay walaalo Soomaaliyeed walaalayaal ummadda Soomaaliyeed ay walaalayaal waa inaan kulligeen intaan istaagna hal qof ma sameyn karo laakiin kulligeen dulmiga waa inaan diidno haddaan rabno dal inuu noo hagaago haddaan rabno Soomaali inay Soomaali noqoto haddaan rabno Ilaahay inuu na barakeeyo haddaan rabno Ilaahay inuu na dejiyo walaalayaal dulmiga aan ka wada istaagno oo kulligeen dulmiga aan diidno oo kulligeen dulmiga aan hal u aragno oo kulligeen aan u aragno walaalka Soomaaliyeed gabooyaha inuu anaga nala mid yahay inaan isku mid nahay inaan waxba is dheereen inayba naga qiimo badan yihiin oo naga diin badan yihiin qaarkood in Ilaahay subhanahu wa ta'ala human being laciifa oo maskiin aan wadanaay oo uu abuurtay walaalayaal Soomaaliyeed dhammaan waxaan la hadlayaa oo maanta message-ku ku socdaa waxaan ku socdaa message-kaygu reer Puntland walaalayaal reer Puntland maanta Sheekh iyo Shariif ha ka harnina arrintan Sheekh iyo Shariif ha ka harnina arrintan walaalayaal u istaaga oday islaan gabar habar wiil kulli waxaan idinku codsanayaa oo idinka baryaya reer Puntland gobonnimo waa idinku yaqaan shicibka Puntland waa shicib sare ilaahay idin daayo maalintii sooba waad ogeydeen half million dollar ayay saa u bagaateeyeen oo u diyaariyeen weligood ummadda Soomaaliyeed iyo jaceelka ummadda Soomaaliyeed kama dhamaanin weligood dad raba ummadda Soomaaliyeed bay ahaayeen waxaan idinku codsanayaa maantayto inaad u istaagtaan sheekheena maantayto inaad u istaagtaan oo walaalayaal Ilaahay baan idinku dhaariyay inaad gobonnimada wax walba ka xigtaan oo maxkamadaha beenta oo la soo diyaarsinayo inaad ka daba tagtaan sida ay ku dhici kartaa ma ii sheegi kartaan reer dhan oo family ah oo aabahood la dilay haddana shantoodiba in loo qoro toogasho everyday waan ognaa sheekada jareer weyn everyday bay ku dhacdaa everyday bay gabooyo ku dhacdaa wax hadda nagu culus maaha laakiin maanta somehow waxay noqotay nin dhan oo caan ahaa oo la yaqaanay
ninkii annaga dhanbana baray lifekan iyo waxaa la soo gelayo ninkii ummadda masaakiinta u gargaari jiray oo koow ahaa number 1 samafalayaasha ugu horeeyay waa samafalihii ugu horeeyay dadka Soomaaliyeed baray in dadka loo tago oo wax la tuso waa samafalihii ugu horeeyay aniga ahaan Jamiil ahaan aan wax u diro oo aan bal la hadlo oo aan la yaabay sida uu u jeclaysay inuu dadka masaakiinta caawiyo walaalayaal maanta tan aniga waa taabatay idinkana waa taabatay kulligeen Soomaali hadaan hayno wayna taabatay laakiin xagaan kaga hareynaa waa xagaan kaga hareynaa Soomaaliyeed waxaan leeyahay message-kayga labaadna aan kula hadlayaa gabooye reerka la dhaho war gabooye reerka la dhaho war gabooye reerka la dhaho war dhulka iska soo qaada war idinka ilaa dhulka ay iska qaadaan nobody dhulka idinka qaadaya runtaan idin sheegaya idinku haddaad dhulka is dhigtaan qofna idinka ma qaadayo idinku haddaad halyeeydiin laysaan qofna idinka ma qaadayo idinku haddaad halyeeyadiin cayrsanaysaan qofna idinma wanaajinayo idinku haddaad halyeeyadiin intaad disheen aabayaasho dishaan dhaqankii ka tagtaan martii bixin weydaan haddana aad maxay ugu goodidaan mid baa baarlamaanka noogu jiro oo idin xirxiraya qofna meel idinma marinayo anigu waxaan leeyahay gabooye 100 jeer baan idin hela waana ka buuxaa YouTube-na waan ka buuxaa dad aan jecelahay tihiin dad aan dhibta loo soo geystay ayaa tihiin dad dhibto in la gumaysto ama dhibaato loo keeno ama dadka laga dhex saaray ayaa tihiin laakiin mid baan idin sheegaya walaalayaal aniga gabadhiin waxba iba dhaanto anna waxba ma dhaamo kullu human being baan nahay kulligeen waa isku mid aan nahay kulligeen isku bahalki baan nahay ilaa idinku taa aad iska dhaadhicisaan qofna idin ma hagaajin karo ilaa idinku aad ogaataan dadka inay lamid tihiin qofna idin ma hagaajin karo ilaa idinku cugdada aad iska saartaan ummadda waad ka hooseynaysaa marka aniga my message to you cugdada iska saara oo maxay tahay idinku kor isu soo qaada oo ku faana qabiilkiina gabooyaan hay dhaha gabooya waa dad fiican waa dad qiimo leh waa qabiil dadkaan oo dhan magacyada lagu rakibay meesha waxay moodeen awal inuu jiray waxaan oo dhan ayaga la qiimaystay haddaad maqasho ma reexaan ayaga qiimaystay haddaad maqasho ma jeerteen ayaga la magaca qiimaystay haddaad maqasho maxay tahay xawaale ayaga magaca miiqaystay haddaad maqasho habar gidid magacooda ayaga la kor u soo qaaday ana runta idin sheegaya dadka ma ka liidataan laakiin idinkii ayaa naftiini iyo maxay tahay qabiilkiina la idinku diray idinka ayaa isgumaada idinka ayaa dadka iska baabi'iya idinka ayaa gadaal isku dhigay idinka ayaa xasad isku ah stop right there hadda ana idin sheegaya waxa aad dadka uga hooseysaan oo uga liidataan oo uga qiimo daran tihiin because idinka ayaa hoos u sii jira idinka ayaa qabiilkiina ka carara idinka ayaa maxay ta ka dhunta idinka ayaa is colaadiya idinka ayaa laba ilma adeer oo waxaan arkay oo gabooye ah oo midna dhahay qabiil kale ah midna dhahay qabiil kale ah why wariya qabiiladan aad arkaysiin oo dhan dadkooda kor u soo qaaday maanta qabiilada la shaarka la kugu gashtay oo la kugu faanayo wariya halyeeyadooda ma dilaan oo halyeeyadooda ma toogtaan oo laaluushu ma bixiyaan oo maxay ta gobonnimo iyo dhaqanku sidoo ahaa kama leexdaan haddana qabiilkooda way ku faanaan soo gabooyo hus baa idin iri afraad sax qoysan gabooyo la yiri waana la xumeeyay laydi ma xumeyn idinka kor soo qaado wariya baray maxay ta madaxweyne ku xigeenkii Soomaaliya idinku ahaa madaxweyne ku xigeenkii ummadda Soomaaliyeed oo dhan idinku ahaa maxamed cali sabatar oo ninka dharta Soomaali ka qurux badan uu adduunka joogin Allah ya arhamar raahimin nin gabooyo buu ahaa ninka adduunka ugu tacliinta badan ugu qiimaha badan ugu qurux badan baa caruurtiisuna abtina waa kadalika laakiin idinka haddaad kor isu soo qaadin yaa kor idin qaadayo idinka haddaad kor idin isu soo qaadinin oo aadnan qabiilada isla siminin oo aadnan dhulka iska soo qaadin yaa idinka soo qaadayo aniga waan rabaa inaan ka soo qaado laakiin idinka baa dhulka isku garaacaysaan idinka baa waxaad dhahaysaan ka dhunta anigu ma ihi gabooye idinka baa waxaad ku haysaan waana la yeesay waana la waxeey wariyaa meel kastoo ay ku nooshiin gabooye meel kastoo ay ku nooshiin caruurtiina niyada u dhisa oo kor u soo qaada oo caruurtiina tuso ummadda inay la mid tahay oo diida in hoos la idin dhigo idinkuna hoos ay isu sii dhigtaan hoos waa la idin dhiga waa ognahay laakiin idinkana hoos ay isu sii dhigteen idinkii baa dhulka is dhigay idinkii baa maxay ta qabiilkiina ka cararayo idinkii baa wax cuqdad isgeliyay idinkii baa maxay tahay wax ummadda aan ku qafileen tahay madaxweyne ku xigeenkii ummadda Soomaaliyeed 22 sano idinku ahaa 22 sano ayaad ahaydeen وانا البابي وانا الوحي وانا الوحي وحبلا انكم سمين idinka ayaa iska dhigteen in dhulka la idinku garaaco waayo idinkii ayaa mar walba waxa sameeynaysan walaalayaal dhinacii waxa ka liidataan self esteemkiina ayaa down ah nobody ka dhigi kara qabiilada lagu sheegay dhan wax kuma dhaamaan kulligood baqti iyo xaaraan ay soo wada cuneen kulligood inta badan astaghfirullah wadaadada inaan ku gafo mar rabo ummad Soomaaliyeed laakiin waxa la cunay waa la wada cunay waxa la idin sheegay lagu dhahay taariikh 19 kala guur baa wax la cunay kulli waa la cunay ana iska madajiye kana iska wixii bug iyo been waa qabyaalada lagu sheegay oo dhan baa bug ah
qabyaalada liin sheegay oo dhan waa been haddana sidaas oo tahay walaalayaal ayaga kor soo qaadeen dadkan ayaga baa isoo dhoobeen ayaga baa dhaheen anagu reer hebel baan nahay oo libaxyaan nahay haddaadna idinku dhihin libaxyaan nahay war yaa idinku haddaadna dhihin libaxyaan nahay yaa idinka dhigaya libaax haddaa idinku dhulka isgeliseen oo boqol gabsaar huwateen oo maalba calaacalaysaan oo waana la fiirjay waana ku haysaan yaa kor idin soo qaadayo talmi maantayto dadka xabsiga gelinayo oo dadka dilaayo oo maantayto ugu tagay niman kale oo ku jira baarlamaanka idinka waay ninkii dhamaayo idinka dhaqdhaqaaqayay baad maxay tahay waxa dhadeen iyo walaalihiisa la toogto what's wrong with you guys maxay idinka qaldan maanta adduunyada joogtaan waxba barateen maxay tahay aqoon baa leedihiin wadankii maanta kaligiin kuma dayacaniin oo ummadda wax la qabtaan dalka Soomaaliya dadkii u soo dagaalamaatay xaqii ummadda ugu badnaa idinka iskale dadkii dhamaayo farsamo yaqaan iyo maxay tahay wax soo saar iyo wax walba la haabaatiin waxay leedahay inaa ku faantaan oo dhahdaan injineeradiinii baan ahayn waxay leedahay inaa ku faantaan oo dhahdaan annaga la'aanteen xabad koronto ama xirxiran kartaa waxay leedahay inaa ku faantaan oo aad tiraadaan annaga la'aanteen hal habeen meel ma gaari kartaa waxay ahayd inaa ku faantaan oo magaciina kor u soo qaadaan oo aad tiraadaan engineerskii Soomaaliya baan ahayn waxay ahayd inaa idinka qalbigiina iyo niyadiina kor u soo qaadaan ubadkiina aad dhali doontaan niyad fiican ku korisaan laakiin markaad maanta dhacdo cugdad la fadhido ilmihiina cugdad ku kiisay maxay tahay idinkiina dhexdiina afraad ka saac iskala guraysaan oo maxay tahay halyeeydiina dilaysaan oo maanta takiin ku qiimaha badnaa abad tooganaysaan oo aad haysaan maxay tahay hal toogto shan nin hal toogto hadda awleen dhibaateeyo oo dhibaato badan iyo boqol wax la ku sameeyay sideed maanta shan qof ugu quurtaan in warqad intii la soo qaato oo warqadaana la wataa waa la tooganaa sidee message-kayga maanta aan idin soo diray waxay tahay walaalayaal gabooye walaalayaal kulli dadka oo dhan waa wada gabooye ummadda Soomaaliyeed waa same dadkan qabiilada ku kala faanay reebel aan ahay ayaga dhulka ka soo qaadeen qabiilkooda ayaga ayaa dhaheen shimbirahan cirka ku kala waxeena libaxyaana dadkan cirka ku kala goosana ilaa idinku asaas iska dhigtaan oo ilaa idinku aad dhulka iska soo qaadaan oo ilaa idinku self esteemkiina aad dhistaan oo ilaa idinku aad power naftiina gelisaan nobody idin gelin kara war aniga iyo idinka isku mid aan nahay war kulligeen iyo inagu isku mid baan nahay war hal family aan nahay war hal meel baan ka wada nimid laakiin cugdada waxay idinku dusha idinkaga korto idinkaga harlaadahay idinkii baa aaminay idinkii baa qabiilkiina ka cararaya idinkii baa dhuumanaya idinkii baa la yasaya idinkii baa isyasaya inta qof kale ku yeesin baa aad isyasaysid walaalina isyasta ma aha maxaan ku dheerood isu yasin muxuu ku dheeriyo isu yasin maxay qabiiladan lagu sheegay ayaga magacooda beenbeenta ka dhigay kor u qaaday waxa lagu sheegay oo in libaxsan ka taabtaan ayaga iska dhigeen adigu maxay inay libaxsan ka taabtay isaga dhig weyday maxaad kor isugu soo qaadi weyday maxaad habeen iyo maalin waysa waana la gumaaday waana la waxeeyay wariyaa madaxweyne ku xigeenkii adduunka Soomaali ninkii ugu kartida badnaa oo ugu qiimaha badnaa oo adduunka ciidanka Soomaaliya aragteen ee aad maqasheen libaxyada Afrika ninkii aasay ee kulligood maamulayay Maxamed Cali Samatar buu ahaa soo aniga bullshit-kay karaabka la wareegaysan ay keenanina afraad ka sac waxa ku haysan waana albaabiye waana la waxeeyay waana la yasay aniga waan ugu yasay ma badiidanime laakiin ilaa adiga dhulka aad iska soo qaado ma ka qaadi karin ciilaan iga ka haayo gabadha aniga iyagoo ila midkoo ila walaashay oo ila dhalatay oo cudada aaminsanayo bullshit because aniga waxba kuma dheeri diin islaam inaad iga badisaaba laga yaaba inaad iga qiimo badan taa laga yaaba inaad iga maxay ta akhlaaq badan taa laga yaaba inaad sideeda sita life soo fadhiisata dhaqaaq lahayn baba laga yaaba akhlaaqiyan diiniyan inaad iga sii dhisan taa laga yaaba because waxaan sameeyay hadda waa dambi laakiin awani dadkayga haddana inaan caawiyo oo way dhibaysaa waxyaabaha socda walaalayaal waxaan idin leeyahay gabooyo waa idin baryayaa dhulka iska soo qaada oo mar dambe ta dhagahayagu yeena maqalin waana la gumaaday iyo waana la wixii war madaxweyne ku xigeenkii adduunka ugu qiimaha badnaa uguna quruxda badnaa nin Soomaaliyeed oo ka qurux badnaa inuu jiro u malaynaayo sawirkiisa markaan hadda arkay wallahi inka qurux badnaa oo Soomaaliyeed inuu jiro u malaynaayo Maxamed Cali Samatar waana ku faanaa I'm so proud Maxamed Cali Samatar inuu 12 sano uu ahaa ninka madaxweyne ku xigeenka dalka Soomaaliya xoog ciidanka dalka Soomaaliya haysta libaaxyadii Soomaaliya ciidanka Afrika laga caanka ahaa ninkii u ka bahalka ahaa buu ahaa markaas maanta waxa dheysaan labooy anahay waxaan gabooy anahay gabooy waa maxay war waxaan dhan lagu sheegay oo wada karaab qabiiladaani dadku ayaga kor u soo qaateen ayaga dhaqdhaqdeen ayaga dhaheen oo reer ficiis baba laba taabto libaxsan ka taabtay waa nin daarooda looma dhawaad kan waa hawiye looma dhawaad oo ka carab kan waa isaaq waaba ka daran waa reesha xasan waxaan dhan ayaga samaysteen dadku oo dhoodhootay marka maxaa ku diiday inaad dadkaaga dhodhoobatid maxaa ku diiday inaad naftaada ku kalsoonaatid maxaa ku diiday inaad kor u soo qaado
war kor isu soo qaada oo kor isu soo qaada oo kor isu soo qaada anaga waana dhibaysaa dhibaatada aan maqlayno kor isu soo qaada maanta dadka go'aansaday ninkii ugu qiimaha badnaa inay toogasho geeyaan yaaqay kor isu soo qaada yaaqay kor isu soo qaada because this is wax la dhageysan kara ma aha ninkii aniga anoon aqoonin 5 sano 6 sano 10 sano ka hor aan kala xiriirayo bari oo dadka masaakiinta ah oo ilaa hadda ii muuqda saan ugu shaqeynayay oo ugu ordayay ee caanka aha ee qiimaha laha ee shiiqa sharafta la aha shiiq anigu ma aqaan mid dadkiisa qarxiya iyo mid meelaha ku jiro dhuumanaya iyo mid imisa shiiqan qabnaa oo wali ilaa hadda ka hadlin dalkeena burburkiisii imisa shiiqan qabnaa oo ilaa iyo hadda aan kala jeclaanin ummadda Soomaaliyeed gaajada u baqtinaysa imisa shiiqan qabnaa oo ilaa iyo hadda Soomaali guurarkoodii iyo carruurtoodii baabay aan ka hadlinin shiiqan ku dhaarto buu ahaa shiiqaasi waxa weeyaan toogashana ma maqli karno wallahi toogashayna ma maqli karin oo aan familkiisa la taaban karin oo aan dadkiisa loo dhawaan karin oo idinkuna gabooyo idinkuna gabooyo idinka ayaa maanta ninkaas dabcadeen inaa malagtaan idinka waa waxa shanta qof dabcayna iska dilaan shan qofna inaynan ka gooyin waa ognahay shan qof inaan awoodin waa ognahay أول بعض بقول وحوك إلى تبني سينو كويس عندي تكلو ما حاول فان ويدين ما أنا والبان وادي جيستا قبلها قبوي ولا شيء قبلنا بقرة أو عن شعلا يوهاليا افرض وادي جيستا some stuff أي كهلا يوهرطوط لكن at the same time ولي ما أركين أيوة كهلا ينهان محمد علي سمطر مدحوين كوينكم مدة صومالية كوريا لما تنسنا وحوانين محيتين قبويا أو براون كوينو قبويا waxaan arkaysaa gabar ka qoordheero ka qurxbadaro quruxdi ka badato oo isqarinaysa na maxay soo qarinay in kaara la ku guridiyo na ku faan qabiilkaaga war yaa ku faan qabiilkaaga war dadkiina ku faana oo idinka dadkaan oo dhan dadkooda ayaga dhoobteen beertaan iyo bugtaan qabyaaladaan iyo qashinkaan Soomaali kala dishay qof walba asaga dhoobtay qof walba asaga been marsaday qof walba asaga burush oo ku quxeeyo in Allah lama arki anagoo kaleeto marka ayagu ma saasay go'aansadeen idinku maxaad dhulka isu dhigaysaan oo kaar balan kaga dhigana oo la idinku dul soconaa oo loogu maleynaya inaad dadka ka liidataan oo caruurtiina aad u tusaysaan inaad dadka ka liidataan because dadka kama liidataan walaalayaal dadka inaad ka sarreysaan ma ogiye kama liidataan dadkii wuxuu soo qabtay ee Soomaaliya oo hub haysanin dartood u wingareeyeen ayaa tihiin horta yaa maxaa taa uga hadli weydeen Soomaaliya ma wingareyseen cadaawo kama wingareyseen umaday la dagaalamaysa kuma wingareyseen ayadoo Soomaaliya ta meesha ugu horeyso diyaar ugu rusheeyo hubkii ay sameeyeen gabooye iyo qaansada iyo falaarti ay Soomaaliya meel ku gaartay Soomaaliya la'aantii wariya ma la arkeen Soomaaliya waa inaad ogaataan taariikhda lambar 1 inay ka tihiin haddaadna idinku saa isfahansiinin de maanta waxay noqonaysaa inaad caruurta generation to generation inaad cugdadii xumaan lee ka dhaadhicisaan inaad ogaataan idinku in generadii dhammaaya ummadda Soomaaliyeed soo bixiyay maanta inta waxaan u guur waayay shiiqaas in la dhaho oo inta soo fadhiisa meesha dhaho waxa weeyaan moogtii waa dadka laga fiican asaaba Soomaaliya oo dhanba ka fiican shiiqaasaytii aniga last name magaca oo waabay dhibaabo iga baxaa shiiq oo Shamsuddin ma Soomaaliya asaga ka sareeyo asaga ka diin badan asaga ka aqli badan asaga ka qiimo badan asaga ka raxmad badan qolada asaga ka sareysa xagee ku nooshahay oo dhahayso Sheekh Shamsuddin waa dadka laga fiican yahay adigu maxaa tahay xageeyaad ka fiican tahay wax aad ka fiican tahay ma jirto wax aad ka fiican tahay iyo waxa dhaanto Soomaaliga kale oo qabiilka isku sheegayo waxa dhaanto oo aad ka fiican tahay inuu ka fiican yahay kun jeer ka fiican yahay ma ogiye wallahi inayna jirin marka waxaan idin leeyahay gabooyo walaalayaal caruurta yarta cugdada ka daaya oo niyad jabka ka daaya oo maxay ta foolxumada intaad bari lahaydeen waxa foolxun waxa bartaa inaad ahaydeen dadkii hubkii ugu horeeyay Soomaali ku dagaalta sameeyay inay idinka ahaydeen waxa bartaan inaad ahaydeen madaxweyne ku-xigeenkii 21 sano dalka madaxweyne ku-xigeenka ahaa inuu ahaa Maxamed Cali Samatar taariikhda adduunka iyo taariikhda Soomaaliya uu ku qoran yahay waxa wanaagsan caruurtiina bara waxa wanaagsan niyada u sheega idinkuna kor isu soo qaada halyeeyadiina ha iska dilinina oo halyeeyadiina intaad warqad yar u soo samaysataan oo meelo luqluqa leeru shir bixisaan hal toogta yaa la dhihin shan family 5 markii la dilo ma waxaad maleynaysaa inaad badbaadaysaa inta shaqo ku dhamaanayso you think inaad inta dishaan ninkii dhamaay halyeeyadiin ahaa iyo walaalihiis inaad idinkana nabad ku waarasaan oo haddana familada kale nabad ku sii waarayaan ma moodeen war haddaba isdaba qabta war haddaba warqada beenta oo la soo qorayna hala jarjaro haddaba degdeg odayaasha gabooye
degdeg odayaasha Puntland ku nool oo gabooye waa inay isku arkaan oo degdeg arrintan ay u baabi'iyaan oo degdeg arrintan tii hore magti la isku raayo tii dambe magti dhacday inay kala qaataan degdeg because Soomaali weligeed mag bay kala qaadan jirtay weligeedna lama arkinin meel reer odaygood intii la dilo haddana la dhasho qof baa laga tooganayaa waa no way adduunka meel ay ka dhacdo lama arkinin diinta islaamka way qabtaa qofkii wax dila toogo marka kii wax dilo dhiga galay dil laakiin kii dhiga galay haddii marka intaad heshiiseen aad ku heshiiseen inaad kala qaadataan mag in maanta ito la dhaho maxay tahay shiiqii iyo walaalihiis baa la tooganayaa wax aqli gala ma aha haddaad maanta shantaa toogataanna Puntland waxba idin ma qabanaysa idinka un baa isku dhamaanaya runtaan idin sheegaya wallaahi oo billaahi inta idinka hartay baa dhamaanaysa hal qof oo ku nool oo gabooye ah oo family oo ku nool Puntland inuu badbaadaynin Puntland ka maxay tahay nimanka yareer oo dawladda warqada beenta idin soo qorayna idinka ayay madaxa isu kiin gelinayaan waayo hadda idinka inta la lishu bixisaan rabtaan inaad halyeeydiin toogataan oo wiilashiini kala xirtaan oo dishaan de ayaguna intii rabtaa inay xooga qaato saasay sameynayaan ilaa asaga afkiisa ka sheego wuxuu yiri dawladda ma ogeyn sheekadan dawladda walaalkay Faysal aad baan ku salaamay Abu Macaan maxay tahay ayaga afkooda ka sheegay oo yiri dawladda xabadna lama ogeyn dawladdu warka ma hayso dawladda Puntland iyo madaxweynaha Puntland warka ma hay afkiisa asaa ka sheegay ana dhagay ku dhageystay oo maanta video-ga la ii soo diray marka ayaa sheekadan beenta soo samaystay yaa warqadaha beenta soo samaystay waxa soo samaystay qolo laaluush yar qaadatay iyo nimankan oo ayaguna gabooyaha ah oo raba ninkan in la toogto midda kalena mid baan idin sheegaya Soomaali waxa jirta socota oo meel walba ka socota oo gobol walba iyo state walba ka socoto aan idin sheego nin kasta oo dadnimo leh oo shiiqa bal u fiirsada shalay waxaad u jeedaan Coldoon oo cillo lagu xirtay boqol shiiq baa ka tagtaa lagu yiri Puntland oo la damcay in la dilo maxay tahay koonfurta kadaalika Kismaayo wadaadada qiimaha leh ee raba dhiigu ku jiro ee dalkoodii damcayna u hadlaan oo raba dadkoodii inay caawiyaan isla markii ayaa waxa loo soo tuuraya wax la leeyahay wariyaha lagu dilay hadii kala meesha ka tag sheekadaana waxa ku jira cadaawo aniga iyo idinkaba inaga shisheeyaa ku jira cadaawo ku talagalay dalka Soomaaliya aqal yar inuu soo kicin oo maskax yar inayna u soo kicin oo meesha ay joogaan meel xun godka ay ku jiraan godka dheer inay galaan ayaa walaalayaal arrinta ka dambeeya cadaawo noo tashtay ayaa arrinta ka dambeeya cadaawo raba inay Soomaaliya ay dabar go'do oo ay dabar go'daan halka harinin ayaa arrintan ka dambeeya marka waxaad ogaataan sheekadan oo shirka la dilaayo wax kalena waa ku jiraan ana taa idin sheegaya not only inay gabooyad rabaan in ninkooda la dilo inay rabaan kuwa aqli xun ninkooda in la dilo inay ayagu lacag ku bixiyeen ayagu warqada soo dhamaysteen inay ayagu rabaan shan qof in laga toogto not only that waxa ku jirta nin dhaqaaqayo oo damiir leh oo dhiig leh oo Soomaali aan lama rabo waa sababtii loo xiray Coldoon waa sababtii wadaadadii kale ta uga carareen baalka waxa la rabaa inuu cararo oo uu ku soo noqonin state-ka asaga kaligiisna ma aha waa la ii sheegay koonfurta waa la ii sheegay maxay tahay Baydhabo waa la ii sheegay maxay tahay Kismaayo waa la ii sheegay all over state kasta oo Soomaaliyeed qofka qiimaha leh iyo nin wadaado qiimo ka talnaa markii la arko qaarna waxa la yiri intayba ka hadleen oo jabcin oo kale mid intuu istaagay oo dhaa warni dalkeena aan daba qabano war caruurtay maxay tahay niyo waan garanaya caruurtaas waxa dhalay hebel iyo hebel caruurtii nicishta madaxa soo duubanaya markuu saa uga baxay salaadii baa dhar rag lagu siyaala boqol baa saa lagu sameeyay boqol baa saas loo kala jeexay waayo aqli baa nala kala dagaalamaya oo dadnimo nala kala dagaalamaya oo waxa nala kala dagaalamaya wax garad oo waxa nala kala dagaalamaya wadani yar oo soo kacay waxa nala kala dagaalamaya ummadda Soomaaliyeed inaan kor madaxa u soo qaadno ayaa nala kala dagaalamaya walaalayaal shiiqan ummadda Soomaaliyeed oo curyaamada iyo maxay hayta maatada iyo maxay tahay nin naagtiisa sakaraat oo sagaal ciyaar hadda koor waxaan xustaa iga raal noqdo walaalayaal please ana ku soo celina insha Allah hadda koor waxaan daawaday indhahay ka daawaday asoo maxay tahay boosaaso dhexdeeda wiil miskiin nin miskiin oo kaariyoono wato u tagay ninka naagtiisa muddo badan bay sariir saaran tahay sagaal ciyaal oo yar yar ayuu haystaa wallahi qofkii xasuusta sagaal ciyaal oo yar yar u haystaa markaas wuxuu ku yiri kana la soo kalahay maalmana waxaan helaayo waxaan cunto ugu gada reerkii baan helaa maalmana waan waayaa sagaal yan ayaa guriga u fadhiya naagta gabadhiisina xaaskiisina way sakaraad nafta dhibaysa hadda inay noo sheeg kala maqan nafta dhibaysay waxay raahayd muddo ayay saasaydo sariirta u saareed oo ayada sariirta dhunta loogu qooyaa
والله وبالله والله ما أنت داوضي ولا إلمي قرقي انتو تجي أو عيالك يو ننكي وتجي أيوب وشقد لعك جرت أوجي مركي دنا مبنا أمد الصومالية وضن نحريص تميرن أو قيمها بدن أيه قرمة دنا أول بك جاي استاجي أو وحنا قاعدوا محيتي العقل وضد الدري ضد بدن العقل والدرين مركا ولا ليال قف كسانو دريمية أو قيمها محيتي نحريص هايسو أو دريمية الصومال نمد الله ينو لما ربو لما ربو إنه صومالي هذا لما ربو إنه نولادو وحال ربو ودن كإن عقلي قال دقالمو وحال ربو إن حتى نلنيرada wax soo garanayso oo wadanimadu ku jirto qoorta loo wada dheereeyaa waligay ma ilaa baqso hooyada iiga sheekaysay oo tir wiil yar oo kaligiis hooyadiis dhashay ay hooyadii dhashay oo madi ah oo yar soo kacay oo shax oo markaasay tii madi buu ahaa gabar yar lagu daray shaqo yar oo meel ka bilowday habeenkii qoorta la soo xirtay wiilkii cunugiisa 2 bilood jiro 2 bilood cunugii ugu horeeyay guriga loogu soo galay because cunuga wuxuu ahaa firfircooni dhalinyarada hadda markaas Soomaali buu ka hadlay qoorta loo dheereeyay marka maamada indhool ay dhashay kaligiisa wiil ka dhashay hal wiil oo yar u dhalay halka wiil buu ka tagay qisadaas marna waa ka sheekay because xanuun bay ugu haysaa ilaa maalintii horta ii sheegtay wallahi ilaa hadda way dhibtaa aad baan uga naxaa ma fahanteen dadkeeni waxa lagu dhameeyay qoorta loo soo xirto madaxo loo soo dalbado kii oo maxay ta dhaqaaqayo oo ka baxo wadanka dib kale waa ku dilaya kii dhaqaaqay aqli rugu arko oo maxay ta loo raadiyo sidii line loogu galin lahaa xasi kii maxay ta dhaqaaqay oo loo dhiibo shisheeye kii saasaan ku dhamaanay Soomaaliyeed sida ayaan ku dhamaanayna marka walaalayaal sheekh muka Shamsuddin walaalayaal dhamaantiin u istaaga oo dhamaan waxaan la hadlayaa shicibka quruxda badan ee qiimaha badan ee sharafta badan ee reer Puntland anigu dawla lama hadlayo laakiin anigu waxaan ogahay Puntland waxa dhisay shicibka Soomaaliyeed ee reer Puntland ayaa dhisay waxa wax walba ku hagaajiyana waa reer Puntland shicibkooda waxa wax walba oo wanaaga ku hagaajiyana ilaahay ka soo waa reer Puntland shicibkooda waxaan aragteen ee soo dhaweyn iyo adduun iyo qurux dhacay waxa sameeyna waa reer Puntland shicibkooda shicib aad wadaniyiin u ay leeyihiin marka waxaan leeyahay maanta sheekadan oo warqadaha la soo qaatay salkeeda idinka ina soo ogaataan waa shicibka Soomaaliyeed oo Puntland ku nool ilaa arintan Ameerika soo ogaataan waxaan ku cusayna inaan ma fadhiisanin because wali adduunyada kama dhicinin family 5 oo aabahoodna shalay la soo dilay maanta nin halyeeya soo ku horkacaayo la dhahay maca curadkii reerka lagu daraya oo la tooganaya no way gabooy haday taas yeeleen annaga ayaana ka yeelaynin gabooy hadii damiirkooda iyo dadnimadooda intaas tahay annaga ayaan ka yeelaynin wallahi inaan ka yeelayno billahi wa tallahi gabooy aqligooda haduu saas noqdo inay ninkii ka dhaqaaqay ay toogtaan oo ay maxay tahay ayagu warqada laaluusha bixiyaan annaga ayaa meesha galaba ka daba galayna ana gabooy ana cidu yahay ana winaadeerkay ana walaalkay ana nin kasto Soomaaliya la dhashay ana Puntland ka imaaday oo dadkayga sinjigay ka imaaday wallahi oo billahi oo tallahi inaan nageelaynin gabooyo annaga reer Puntland iyo idinkay noqonay markaa haddana sadana drop garayni waxa wadaan iyo warqadaha beenta soo qorateen ma idinka daba harayno mana yeelayno mana umalayn mayna shicibka reer Puntland ee saarka u jeclaa ninkan umalayn ma inay sameeyaan waayo qof aan wax cad lagu haynin oo warqadna iska soo goosto dhahay wal toogana xagee ku dhaartay aad baan ugu xumaada maanta inuu dhaho meel baa lagu ilaalinaya wallahi aad ba ii darqaday asoo kala ma ahayn ninkii meel lagu qarqanin lahaa ama maxay ta cadow laga ilaalin lahaa nin haddana reerkiisii oo dhan la tooganayo la dhahay reerkaagu dhan baa la tooganaya am galaad inuu speak up sameeyo oo hadlay because maalin walba waxaasi wax ka daran baa dhaca mana la oga maalin walba waxaasi wax ka daran baa dhaca hadii hadda maanta la dilaa nal dhila maalin mar hore taa Sheekh Shamsuddin dhintay nal dhila xataa wax ogaan lahaa ma lahayn marka waxaan leeyahay maanta waxa dhacay iyo waxa ku dhacay Sheekhaas Shamsuddin igabooyo idinka dhigteen shaaluushkan idinka bixiyeen ninka oo ku jira dawladda dhahay uu ku jira maxay tahay state-kaas government-kaas ku jirana idinka ayaa u dhuumateen asaga laftirkiisa ayaa beer soo qortay maxkamadda ilaa waxa dhan waa la soo faagaya mana la deynaayo everything-na maanta waxay noqonay gabooyo iyo reer Puntland waayo annaga dantaana gelinaysa haliyay saas oo kale oo Soomaali dhan wuxuu taraayo wax ma taraho dhan ha dhinto inta kaas dhiman lahaa wax ma taraho dhan hal dilo inta kaas dhiman lahaa waayo qofkii ummadda wax ku soo saayidinayo oo dalkiisa u heeganka oo wax ku soo saayidinaya dadka wuu nagala qiimo badan yahay waana lawyer kasta iyo meel kasta waa u galeynaa waa u taagnaanayna anigu kulay ahaan falantiir meel walba aan u galeeyaa waa u taagnaanaya falantiir meel kasta ayaan u galeeyaa
وخلط وحاسن إذنك أسكو سميسين iyo maxay tahay cuqdadan baasaad qabtaan iyo lawnimada dhulka isku dhigaysaan idinka isku samayseen waayo haddaad idinku wixii la dhamaysan lahaydeen laaluush lama kala qaateen oo meelaha lama tageen oo warqad lama soo goosteen oo lama dheer 5 nin baa la dilaya 5 nin baa la dilaya markii 5 nin la dilanayaa ku xuga yaa ku xuga 5 nin markii la dilo waxa ku xuga gabooye inay baabaha iska dhigaan baabaha iska dhigaan ka xigto ka sheekay ninkii dhamaa oo ka dhaqaaqayay bay laaluush bixiyeen oo la dhahay hal dilo 5 qof oo gabooya 5 nin xataa 5 qof maaha oo dumar lama dilaan waa 5 nin waa boqol leh waa 5 nin baa la dilaya aabahona shalay la dilay family 6 waay mujeeda waa family 6 ayagana hal wiil laga dilay xagee laga dhigaa sheekadaas dhinacaas xagee ka ciyaartaa sheekada noocaas xataa diinta islaamka qofkii qof dilay loo dili jira maxay tahay halkii qof ma 5 qof loo dilaya ma sheeko cusub oo gabooyaha ka timid waaye halkii qof inuu 5 qof loo dilay 6 qof مع أبوه مركي القدرة مركي شيخ أبيس لدلي أو محيتي لدلي بقتي لبحيه أو عنق يركع هاي أبيس أو لدلي ده شيء واحد دلي مركع وحلو دلي أبيه مركي القدرة اللي حقف أو مع شيخ قيمها لو كتلو أو مدة صومالية ضرنا يا جنسو مركع واحد وقتان هذا شيخان إنه إذن ككريه هاي أمة الصومالية هليه صومالية أو مدة صومالية ضرنا يا جنسو إنه يهوجاده nin umada Soomaaliyeed oo dhan u istaagaysa inuu yahay ogaada nin aan kaligiis ahayn inuu yahay ogaada maanta muxuu dhahay walaalkay shaasha markuu soo baxay muxuu dhahay umada Soomaaliyeed ayaa ay soo deysay waa runtiis umada Soomaaliyeed oo dhan ayaa u gurmatay sidoo kale waxaan u gurmanaynaa oo u taagnaanaynaa oo habeen walba u taagnaanaynaa inta sheekadan oo la sheegayo 5 qof iyo 6 qof oo halka meel la dilaayo ay ka dhamaanayso sheekadan maxay tahay Puntland waayo hal family oo la dilay anagana sanamiyana minimay eeganayno waan ognahay dagaal sokeeya ka soo socda waan ognahay gabooyo waxay noqonaysaa tan waligood mid taariikhda u gasho waligoodna ayna ku kala harin ayna ku dhamaadaan hadayna hadda way maqlayaan message gaan soo heeriyaan hadayna hadda arrinta degdeg ku gelinin odayaasha Puntland jooga ee gabooye hadii ayna degdeg ku gelinin waxay noqon doontaa taariikhda mid si fiican soo marta awal beena sheegayseen idinkoo madaxweynayaal iyo ka dhasheen ayaa la haydan waan liidana waa baybar baana waxba manihi وانا لا يسا إذن كان نكى وقصر رأي صومالي وإذن كذا شيء أو أحدث كي صومالي ودن هو كبري أو أحدث كي صومالي ودن تكنولوجيا شو سمي أي دوك شو قرعة أو عروت عقدة جلسة أو إذن كي إسكان نكتين أي إن دوك محيط كليدتان سووا كليدتان تلمي حاجة كليدتان محيس أمة الصومالية سدرتها أيضا نبغى أمة الصومالية وإسكان مساكين وإسكان ريمي وحوار نقطة رير جوراي أنا كم ده هيدا اللي نكني ورانا سايدين شيء واي message ka inta badan gabooyo ku socda because waan xanaaqsanahay because ninkii dhamaa haliyayga ahaa oo dadkooda ugu qatarsanaa bay maanta meesha soo saareen oo ay leeyihiin waa la tooganaya ayagaana ka dambeeyay sheekada hadday leeyihiin reer Puntland hadday xataa maxay tahay maxkamadda warqad ka soo qaateen wax been oo loo geeyo warqadda uga soo qaateen laakiin dadka u tagayaa waa ayagii loo tagay ayagii laaluush kala bixiyeen nin baa ugu jira meesha dhag ayaga la soo dhamaysteen maxay idinku lugihiina maxay ku sameeyeen qola kale ayaan dusha laga saaray idinkii ayaa dadkiina dilaysa idinkii ayaa dib isu dhigaysa idinkii ayaa maxay ta qalbigiina iyo naftiina waxa ka dhigteen dadka waa ka hooseyna idinkii oo dadka ka sareeya oo ka qiimo badan oo ka diin badan oo ka cilmi badan oo ka maxay ta active san ayaa dhulka isgeliseen walaalayaal kor isu soo qaada waan jeceelaan idin qabaan idin la hadlaaya aad bayna ii dhibtaa aad markaan maqlo waxyaabaha idinka iyo walaalo idin la mid ah ba lagu haayo aad bay ii dhibtaa horeyna waan u daawateen oo anigu hadda kaliya kama hadlin wada ogtiin horeyna waan uga hadlay many times gabooye waxaan rabaa oo kaliya ilmaha hadda dhalanayo kuwa hadda soo kacaya cuqdada idinka ku jirta inaad ku beerin ee aad soo nifti garaysaan oo kor u soo qaadaan ina ilmihiina kor u soo qaadaan oo qalbigiina tustaan human inaad normal tiin maxay ta dadka la mid tihiin kana sareysaan dadka qaarkiis oo dad qiimo latiin oo dad wax soo saar latiin oo dadkii dalka dhisay aad tihiin dadkii dalka u soo dagaalamay hubkii loogu dagaalamay tihiin dadkii maxay ta uu ka dhashay maxamed cali samatar aad tihiin dadkii dawladda ku jiray haddana ku jira wali ku jira inaad tihiin oo dawladda dhinac kasta state kasta Soomaaliya kala daadato qabyaalada isku waxayso ha kala baabaasanaato dawladeeni iyo sharafteeni iyo qiimadeeni iyo quwadeeni dhulka ha galaan laakiin xaafadaha la kala xirxirtay meel walba waad ku jirtaa meel kasta waad ku jirtaa hadday tahay koonfur hadday tahay bari hadday tahay meel walba waad ku jirtaa laakiin markaad idinku xaafada deganideen uska ka dhigtaa
oo meesha deganeedeen idinku hoos fiirisaan oo dadka kale markaa artaan idinku hoos fiirisaan oo markaa idinku maxay tada ummadda soo dhex gashaan idinku qabiilkiina ka carartaan dee forever saasaad ahaanaysaan 200 sano dambana saasaad ahaanaysaan waana idiin sheegaya anigu qabiiladan waxba idima dhaamaan laakiin ayaga is jafay oo yiri maanaga reer hebel libaaxiyaan aysan dadka ka taabana idinkuna sidoo kale dhaha bal ninkii raaya reerka u haree ninkii raaya reerka u haree dhulkaas isdhigaysaan waxa ii dhaanto intaad kor soo qaadaan inaad dhahdaan war idinka sankaada ka taabataan anaguna madaxaan ka taabanaa inaad dhahdaan inaad kor soo qaadaan oo qalbigiina iyo self esteemkiina kor soo qaadaan oo aad tiraadaan human alla abuurto idinka idin lamid oo idinka sarreeyo idinka qurux badan oo idinka diin badan baan because wax badan oo aad ku faantaan oo Soomaali badankeed aad ku dhaantaan baa jira active-nimada ay leeyihiin dad badan oo Soomaaliya ma laha aqoonta ay leeyihiin oo farsamada dad badan oo Soomaaliya ma laha maxay tahay madaxweyne ku xigeenkii Soomaaliya 12 sano dad badan oo Soomaali u soo maray ma jiro idinka ugu horeeyay idinka ayaa waay ninka 20 years Soomaaliyada power kala iyadoo la yaqaan idinka waa wixii madaxweyne ku xigeen u ahaa marka ilmihiina taariikhda fiican u sheega mugdiga iyo qashinka iyo qurunka iyo weera odayaal xaraan cuneen naga daaya kulligood xaraanta waa cuneen laakiin ayagu beenba shaarba intay gashteen bay dheen anagu libaxyadaas ka taabanaa idinkana waxa dhaadeen ma nihin anagu qabiilka hadda idinka kor isu soo qaadinin oo idinku dadka aadan markay stand tall aada sameeyeen b stand tall wariyaara marka idinku tall noqotaan oo dadka kor u fiirsan ayay kor idin fiirinayaan Soomaali waa reemi wax xoolo dhaqato waa dad diinta Allah aan si fiican ugu dhaqminin hadda marka idinku dhulka gashaan miiskooda gashaan dhuumataan oo carartaan oo qabiilkiina ka carartaan oo dadkiina laysaan qofna kor idin ma soo qaadayo idinku ma taqana marka ugu horeysay kor isu soo qaada oo marka ugu horeysay ilmaha sharafta u sheegay wanaaga oo marka ugu horeysay cunug cugdad iyo niyad xumo iyo niyad jabha ku korinina ee waxaad ku korisaan madaxweyne ku xigeenka Soomaaliya inuu adeerkiisa ana ku faano madaxweyne ku xigeenka Soomaaliya ana ku faano oo habeenii maalin baraar ku wallahi oo billahi wa tallahi taariikhdiisa markii la iga sheekeeyo ilaahay magaciisa ku dhaartay maantu dhintay hadda waxay moodaa weliga inaan aqaan la shaqayn jiray ilinta iga baxday maxaa weli ma arkin qof gabooyo hadlay dhahay Maxamed Cali Samatar ma dhahay ma arag waxay ku hayaan gabooyo waana la yasa waana la waxay maxaa lagu yasa ani waaba dhiga qurxoonta iga qiimo badan diintana ku fiicantay bismillahir rahmanir rahim walaalayaal Soomaaliyeed gabooyo waan jecelnaa dadkeeni baatiin kor isu soo qaada idinka kaligiin ma aha maalin walba waan hadlaa idinka kaligiin ma aha walaalaheen jireer weyn waa lagu xadgudbaa si xun baa loogu xadgudbaa Soomaalina day walbayda bareys idinka waa idinku xadgudbo oo waanu ognahay hadda same time dad fiican baatiin waa ina ogaataa inaad dad fiican tihiin oo maalin walba dhahayna waa lagu xadgudbay because idinku waa inaad soo qaadaan kor isu soo qaada qabiilkiina ku faana isdhisa oo ogaada inaad tihiin dad Ilaahay abuurtay dadkaan waxba idin dhaaminin oo maxay tahay niyadiina khayr inta u sheegtaan iyo wanaaga qabiilkiinu soo maray iyo waxyaabaha fiican oo soo sameeyeen iyo madaxweyne ku xigeenka ahaydeen iyo sharaftii adduunka ku lahaydeen oo Soomaali ku lahaydeen iyo sida Soomaaliya halgan ayna uga dhaceen idinka la'aantiin ku faana oo kor isu soo qaada walaalaheen jareer way fidhay dhibaato lagu sameeyaa beerahoodii baa laga dhacay guryahoodii baa laga dhacay gabdhahooda la fuulaa meel walbana waa ku dayacan yihiin meel kasta waa ku dayacan barnaamij dhan baan soo wadaa oo ku saabsan walaalaheen jareer way walaalaheen banaadiri dhib badan baa soo gaartay Soomaaliya marmarka qaarkood markii waxyaabaha qaar la ii sheego wallahi waxaan isdhahaa iyo billahi iyo tallahi inta dadka noolyiin ilaahow naga qabta ma ogeen gariir baan ugu dhici doona waayo meesha xaq darradu ku badato meesha fusuqu ku bato meesha xaaraantu ku bato ilaahay ayaa u ballan qaaday ciqaabtiisa ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa u ballan qaaday ciqaabtiisa Soomaaliyeed fusuq badan xaaraan badan xaq darro badan meesha ay ku badato Allah subhanahu wa ta'ala ayaa banishment u ballan qaaday banishment from God ayaa qof walba ku dhacayso haddii inagana aan fiirsano oo aamusno inaguna we included because haddii dariskaaga oo la dulminayo aragtada waxay ku dhahayaan Americanka waa run waxay ku dhahayaan dariskaaga hadduu qayliyo oo qayladiisa ay maqashid you supposed to call police waa inaad isla markii wacda booliska oo aad tiraahdo I don't know what's going on guriga waxba ka jira laakiin waxay ku leeyahay haddaad maqasho oo aad ka aamusto ma tir helpful waa runtood exactly diinteennana waa opposite haddaan intaad xaq darro aragto aad indhaha ka daboolato dambiga waad ku jirtaa xaq darro haddaad aragto oo aad u jeeda xaq darrada socota iyo xaaraanta socota iyo maxay tahay xadgudubka socda haddana aad u aamusto oo aad tiraahdo ani le allo badbaadi
Soomaaliya taa ka weynaana waxa garaal inoo dhigay 27 sano ina baabi'iyay ee garaal inoo dhigay ee aan la baaba'sanahay ee aan u soo noqon laanahay waa taa qof walba meeshaada ka kaco xumaha ka diid qof kasto meeshaada ka kaco xumaha ka diid qof kasto meeshaada ka kaco xaq darrada ka dagaala qof kasto meeshaada ka kaco wanaaga ku raadi qof kasto meeshaada ka kaco wixii xundadkaaga uga dig waxa tirada walaal waxas way xun yihiin walaalow kula ma rabo waxa inay sameeyay war walaalow ka soo joog cadaab ha gelin anoo ku jeeday ka joog dadkana xaq darradaada ka jooji maalin kasta waxaan maqlaynaa dadka gabowyaha waxa lagu sameeyo oo maalin kasta waxaan maqlaynaa waxa lagu sameeyo maxay tahay jareer weyn oo maalin kasta waxaan maqlaynaa qolada aamustay oo waxooda intay dhaqday waliba baqayso soo gacmaha ugu xiratay madaxa oo gariiraysa reer banaadir inagu marka waxaan rabnaa inaan boqorro iska dhigno oo inagu weyn garayno oo Soomaali ee qabiilada dhaha anagu laan dheer ka nahay lugooyo aan bixiyo lugooyo mas lugooyaal ina ayagu dhahaan anagu waxaan nahay dhinaca sare oo anagu qatar cadin baan nahay oo anaga ayaa adduunka kala wadna laakiin oo dad xaq darro meel bay kugu qorantaa waxa aad aragtay xaq darro xataa hadaad aragtay wasi xaq darro sameeynayo oo waxadaayo oo aamustay adiga meel ay kugu qorantay you are one of it midku maxay tahay sameynaya inuu dad inqilaabo ama maxay tahay dad laayo oo aamustay adiga meel bay ku ana xaq darro aad marqaati ka tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kugula maxay tahay xisaabtamaya waana adduunkii hadda sidoo hore ma aha adoo adduunka joogtid aan laga jiraaya oo ilaahay ka soo gelinaya kuwa intay wiilashoodu wax dilaan soo qabanay wiil jareer weyn oo ku bedelayo wiilkooda markuu dibadaha taga bartaan laga tooganaya ama wuxuu noqonayaa gay ama wuxuu noqonayaa mid balaaya la tagtay waayo ilaahay ciqaabtiisu ma soo daahayso ilaahay subhanahu wa ta'ala asaga dadkiisa abuurtay ilaahay wuxuu ku dhahay dadkayga ana abuurtay amaan iisi adigu taada raaco ilaahay wuxuu ku dhahay ummadayda ana abgaal iyo islaan ana abuurtay adiga wixii aan ku faray la sameey adiga wixii aan ku faray ka soo bax laakiin qofna lagu ma dhihin raadaaso oo doono oo aniga ii ilaali ilaahay kuma dhihin ilaahay wuxuu yiri diintayda waxba hafidin ana meel walba geysanaya bal eegya diintayda waxba ha ilaalinin waxba hafidin ana meel walba geynaya ayada isgeynayso waa run diinta islaamka ayada isqaad meel walba isgeysay ilaahay baa geeyay diinta islaamka bakiin hadaa tamaanta jaynays oo islaam hayn ba had islaamay ilaahay ayaa awoodaas leh oo wax walba sansanaya adiga laakiin bil aadan oo yarka oo laciifka oo adigu waxad gudubka ibn aadan kana iska ilaali xaq darrada hada aragtana ha waa musi waxa 27 sano in geysay walaalayaal waa xaq darrada loo aamusay Soomaaliya waa xaq darrada lagu sameeyay dariskaagi xalaaleed oo aad u aamusayso waa xaaraanta dariskaagi xalaaleed gurigoodii lagu sameeyay oo aad u aamusayso waa xaaraanta dariskaagi xalaaleed lagu dilay oo aad u aamusayso waa xaaraanta walaalaha maxay tahay dadka inta u dilaan loo dhoofinayo oo aad u aamusayso waa xaaraanta aad walaalo kale masaakiin oo suuq bakaaro maxay tahay wax ku gagadanayo intii loo soo kaxaysta loo gelinayo xabsiga oo kii wax dirayna loo dhoofinayo waa mid aad u aamusayso laakiin waa mid meel ku taala waa waxaan adiga ka hareynin waa waxa wixii Allah subhanahu wa ta'ala ummadiisa oo abuursaday aad u geysato oo xaq darro ah ilaahay asaa kala xisaabtamay waliba degdeg buu kala xisaabtamaya laakiin anigu waxaan leeyahay Soomaaliya waxa inagu dhacay inkaar inagu aan xaq darrada la wada aamusnay marka aan hadalno oo xaq darrada aan diino oo wanaaga aan raadino oo sabaha aan kulligaan u doodno war sheekh sharif yaa la kala harin war si aan Soomaali ku noqono iyo nation of Islam ah oo la yaqaano kulligaan mid walba meesha taagantaa walaalayaal ka istaaga oo mid walba meesha taagantahay walaal maxay tahay wanaaga ka fidi oo mid walba meesha taagantahay ka tilmaan walaalaha xaq darrada ku socda ama maxay tahay ama wax xun sameynaya walaalayaal dhamaantiin u istaaga wanaaga haddana u istaaga sheekheena walaalayaal Shamsudiin hal loo wada istaago waa khalad waa inaan u hadalno waa inaan maxay tahay tusno codkeena waa inaan tusno sidoo asagu u caawinayo ummadda Soomaaliyeed inaan anaguna garabkiisa ugu taaganahay sidii dadka masaakiinka u habeenimo maan ugu taagnaa inaan anaguna maanta ugu taaganahay oo aan yeelaynin in la abuse gareeyo ama been lagu dilo ama walaalihiis lagu dilo waa inaan tusnaa waa inaan u istaagnaa gabooyana waxaan leeyahay arrintan degdeg ku gala oo waxaan leeyahay odayaasha gabooye adeerayaal abtiyaal kulli intaad istaagtaan arrintan degdeg nooga dhameeya oo arrintaanu yay soo noqonin oo arrintaanu ninka wadaadka oo maskiinka oo waxba geysan oo sharafta leh oo qiimaha leh oo ummadii masaakiinta ay gaajeysnaa habeen iyo maalin guryahooda ugu tagay oo magaalo tuulooyinka ugu tagay oo baadiyaha ugu tagay baadiyaha intuu lugeeyo ugu tagay oo wuxuu u geynayay
ilaahay ina abuurtay ka baqa oo u istaaga gabooyow ninkayni ka dhaqdhaqaaqaya ha iska dilinina oo qiimaha leh ha iska dilinina oo maxay tahay xataa wixii dili lahaa ka ilaaliya oo isu istaaga oo gacmaha isqabsada oo qabiilkiina ku faana oo proud ku noqda oo ogaada inaad tihiin human ilaahay idin abuuray oo aan qofna waxba dhaaminin oo aan qofna ka sarreynin oo aan qofna maxay tahay wax uu dheeryahay uusan jirin inay idinku wax dheertiin dadka ma ogiye haddaa idinkii qalbiga iska jabisaan habeen walba idinku mugdi ku jirtaan qofna idinkama saari karo mugdiga idinka unbaa iska saari kara anuu intaan ku waanayo waa taa waana jeceyl aan idiin qabo waa wanaagiina aan jeclahay waa sidaan u doodayo oo gabooyo ugu doodaa waa xiiqay laakiin maanta idinka ayaan tan idin haystaa in maantayto ninkii idinka dhaqdhaqaaqayo dadka ugu fiicnaa oo wadaadka ahaa oo wadaadyo badan baan qabnaa oo aan ka hadlin dalkeeni oo aan ka hadlin dhalinyarada dhibaataysan oo aan ka hadlin kuwa beerarka lagala baxaayo oo aan ka hadlin maxay tahay burburka iyo hooga iyo halaaga Soomaali ku dhacay laakiin ninkan wuxuu ahaa ninkii meel walba ka dabagelay dadka Soomaaliyeed wuxuu ahaa midkii baadiyaha ugu tagayay wuxuu ahaa kuwa aan 7 days iyo bilaq cunto afkooda saarin oo buushash ku nool ninkii ugu tagayay awr intuu rartay oo cuntada ibaarka ugu geynayay ninkii wuxuu ahaa live kaan la soo galaya dadka soo baray iyo wax la dhaho maxay hayta taakule walaalahaaga ninkii ugu horeeyay oo sameeyay ayuu ahaa dhowr iyo 10 sano ka hor baan ka hadlayaa ninkii ugu horeeyay ayuu ahaa oo soo istaaga oo meel walba carara oo dadka masaakiinta wax u geeya waadna wada ogtihiin kolley dhinacaas oo maxay tahay Puntland oo dhan ninkaas ninkii dadka ugu horeeyay way oo laga daawado Facebook-yada iyo meel walba waa wada ogyahay farshuur maanta haduu coldoon uu arko uu dhahayo coldoon inuu ka horeeyay baan jecelahay waliba wax badan ka horeeyay oo ahaa dadkii ugu horeeyay oo furay afaarahan walaalayaal loo wada istaago oo walaalayaal gabooyow arrintan odayaasha gabooyo oo Puntland ku nool waxaan ka codsanayaa inay degdeg ku soo afjaraan oo ay dhaqankii iyo sidii wax lagu dhamaysan jiray ay ku dhamaystaan waxaad ogaataan gabooyow haddaad 5 nin oo walaalaha meel soo saartaan oo toogataan oo idinka madaxiina maanta lagu toogto waxaad ogaataan inayna 5 nin ku dhamaanin ana taas aan ku bishaareynaya ee ogaada 5 nin inayna ku dhamaanaynin ee 5 nin ay ka badnaan doonto sheekadu ee 5 nin family walba laga leyn doono 5 nin taas ayaan ku bishaareynaya ee ogaada waayo hal nin markii la dilay aabahooda la dilay haddana 5 hadda dilaysaan oo dhaadeen hal la toogto waa 6 nin qabiilo dhan ayaa u rogmanaysa taasaan idin sheegaya marka waxa ka fiican hal la aado oo ah nabada iyo maxay tahay magti la kala qaadan jiray iyo dhaqankii awalba umada Soomaaliyeed dhaqan bay ku socotay iyo diin islaam haloo noqdo diinta islaamka iyo dhaqankeenu wuxuu ahaa markay dadka isdilaan inay ma kala qaataan waxaad ku heshiiseen bilowgii magina kala qaadataa waxaad ku heshiiseen in maxay tahay magti oo aabahood la siiyo magti aabahood oo dhameystiran waa siin weydeen cunug yar oo aabiis markaad u dhashay ka disheen ayaa xabad ku kala jeexay kaasna magtiisi qaata tii hore idinkan ku dhimaneedna bixiya 5 nin hadilinina sheedaankana iska naara sheekadana inta ku xiran waayo Shamsuddin waa ninka Soomaali ugu qiimo badan idinka kaliya iska badaayay hadaa qiimo garanaysa ninka Soomaali ugu qiimo badan waa marka inta u istaagtaan xalliya arrintan odayaasha Puntland reer Puntland oo maxay tahay gabooyaha baa la hadlayaa iyo wax alla wax garada oo Puntland jooga wax alla wax garada oo Puntland jooga arrintan ka soo istaaga oo isinada iyo maxay tahay boqorada iyo odayaasha iyo waxa la sheegayo kulligood intay istaagaan arrintan xalliya 5 nin oo walaalo ah oo family ah oo maxay tahay curadkooda ku jiro oo hal meel lagu tooganayo lama arag mana yeeli karno haday gabooy yeelan xataa anaga yeelaynin haday ayaga aqligooda saas noqotay inay ninkii ka dhaqaaqay toogtaan anaga ma ka yeelayno haddii mid oo dawladda ku jira uu activity samaynayo oo asagu mahadiyay annaga ayaana ka yeelaynin ma laga yeelayo shiiqaas in dhibaato loo geysto ama walaalis loo geysto haddii mid idin xiran yahay oo midkii wax dilay yahay kaasaa ritaan ka yeela laakiin whole family lama yeelayo leen kama yeelayo 5 nin oo walaala leen kama yeelayo iyo 2 nin oo walaala midna leen kama yeelayo iyo waliba ninkii Soomaali ugu fiicnaayo oo maxay tahay ninkii dhamaysan falaa aha leen kama yeelayo anu marka waxaan kaga baxayaa oo idin leeyahay walaalahay gabooye korkana ha isu soo qaadaan kor isu soo qaada sheedankana iska naara midaasaan idin leeyahay dadkiina abaabinaysaan idinku warqadaha soo qoraysaan laalushka bixinaysaan joojiya una istaaga dhamaantii meel kasto aad joogtaan inta la hadashaan odayaasha Puntland jooga degdeg arrintaa ku xalliya haddii kale
meela marteela la duwayna laba safaan noqonaysaan baabaha iska dhigaysaan because sa u socoto markii hal family shan nin laga dilo kaba dhigba shantaa ninba inay shantii nin oo reerkaas kaliya ay ahaayeen laakiin reerka kale qabiil baaski waa sii kala babaxaya lafiya dhamaanayna iyo wixii dhamaanayna iyo basashi aa sii kala fiiqaya marka basashi inay isku dhamaatay noqonay waa reality-ga waa basashi inay isku dhamaatay noqonay marka basashi inta isku dhamaan lahayd isdaba qabta walaalayaal oo kaca oo maanteeto hadduu ay dowladda Puntland xiran lahayd annaga adduunka dhan waa ka kicleen waana la dagaalamay laakiin hadda markii la ii sheego la yiri waa isla ayaga waa waxa u soo dacwooday oo dowladda ka soo dhameystay warqa dowladda oo dhan xataa ma oga madaxda oo dhan xataa ma oga xataa wadaadada waaweyn oo caanka ah iyo nimanka odayaasha caanka ah oo magaalada suldaamada iyo dadka caanka oo la yaqaan ma oga waa arrin hoos laga soo dhameystay afkiisu idinkaga sheegaya waa arrin hoos laga soo dhameystay ma aha wax run ah oo la soo saxiixay oo la yiri ninkan waxa lagu hayaa dilcad hal nin aan dhintay shan nin see loo dilaa oo aabahoodna shalay la dilay waxa maskaxda geli kara walaalayaal hana loo sheego waxa maskaxda geli kara hana loo sheego laakiin ummadii waxaan idin leeyahay isdaba qabta ninkaasna ha loo istaago dhammaan Soomaali meel kasto ay joogto haddaad joogto maxay tahay Baydhabo iyo haddaad joogto Buhoodle iyo haddaad joogto Bari iyo haddaad joogto maxay tahay Waqooyi kulli ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto walaalayaal ha u istaagaan wiilkaas ha u istaagaan oo kulligeen aan u xaq aan u istaagno aan u dagaalano oo not only this one laakiin mar walba xaq aan u istaagno aan u dagaalano waa inaan ummadeeni inaga u loo yargaleynaa waa inaan ummadeeni inagu xaq u tilmaanaa hadii ay xaq ka leexanayaan waa inaan xaq darrada diidnaa waayo meesha xaq darrada lagu diido oo xaq xaraanta ku badato oo xaq darrada ku badato waa la waayaa si xun ayay dhibaato u gaartaa waana waxaan haysto oo 27 years na gaarsiiyay waa xaq darraan kala galayno waa xaraantii oo lagu badatay waa xalaal iyo xaraan la kala garan waayay waa adduunkii oo saas la isugu dhex walaaqay waa maxay tahay qof Soomaali ah oo dhiigiisa iyo dhacaankiisa iyo xaqiisa midna la fiirnaynin oo waxa la wixii arkaaba qofkii arkaaba sii marayo xaq darradii oo soo marayo oo aan la kala jeclaanin walaalayaal waxaas waa waxa la noo waayay waa waxaan 27 sano la baabaanay waa waxaan 27 sano isu cunayno waa waxaan jaahida la noqonay adduunka ku yaacaysa waa waxa carruurheena beerarka looga baxay waa waxa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay u noqotay qaxooti iyo baaba iyo hoog marka insha Allah bilmilahi kariim aan walaalayaal wanaaga isfarno Soomaaliya wanaagaan isfarno oo aan u istaagno inaan xaq u dagaalano walaalayaal dhammaantiinba barnaamijkan qayb labaad iyo qayb saddexaad buu lahaanaya inta arrintan ay socoto mar walbana waan u hadlaynaa walaalkeen Shamsidiin mana yeeli doono amar alle ma sheegin oo wixii alla qadara waa qadaran laakiin waxa yeeli doona iyo wax ka dhici doona ma ahan reer Puntland waaga haduu u bariyo ama tan iyo biri arrintan wax kale ay ku bedeli doonaan shicibka Puntland baan anagu toos u hadlaynaa waayo waa dadka ugu dhiiga badan dadka ugu Soomaalinimada jecel ugu wanaaga jecel wadanka Puntland oo dhan shicibkiisa ayaa dhisay dawlad wax ma tarin shicib baa dhisay shicib ayuu saa ugu qurux badan yahay shicibka Soomaaliyeed ee Puntland ku nool waxaan idin leenahay u istaaga sheekh walaalayaal u istaaga sheekh Shamsidiin u istaaga meel kasto aad joogtaan ka qayb qaata arrintiisaan maanta tayuuna ninka gabanaya noqon xaq darrayaan lagu dalin hala dhex galo sidii odayaashu ahaan jiray sidii dhaqanku ahaan jiray sidii diintu ahayd arrintaa lagu dhameeyo walaalahay gabooyana waxaan leenahay degdeg arrintan Soomaaliya uga xaliyaan waliba dhinaca Puntland ayagu meel kasto ay joogaan hala hadlaan odayaashii xagga oo odayaashii ha u diraan fartiin oo ayagoo dibadaha jooga waxa xaliyaan aniga intaasaan leeyahay waxaan la idinkoo wadankan joogtaan ama wadan kale joogtaan ama dibadaha joogtaan arrintan xalliya intayna meel xun gaarinin shan nin oo isku reera isku hal family isku walaala isla dhalatay shal aabahood la dilay maantana ayagii shan ayagoo aan la tooganayo wax dhici kara maaha walaalayaal saad nagu ogtiin baa anaga midnimo qaran haddaan nahay markasta waxaan u raadinaa xaqa walaalaha Soomaaliyeed ee dulman meel walba ay ku dulman yihiin waxa aan raadino Soomaalinimo waxa aan raadino midnimada ummadda Soomaaliyeed waxa aan raadinayna dalkeena dadkeena ciideena iyo calankeena oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan ka baryayno inuu mar kale mideeyo oo mar kale mideeyo oo ummadda Soomaaliyeed uqdada gabi ahaanba Ilaahay ka saaro qabyaaladana Ilaahay gabi ahaanba ka saaro ayaga oo gacmaha haysto oo adduunka hal mar dayax tagay Ilaahay inuu na tuso waxa aan raadinayna waxay tahay ilmaha sii dhali doonaan future-koodii waxaan u dagaalamayna waxay tahay qaxi nagu dhacay rafaadkii nagu dhacay qabyaalada aragnay ciilka aragnay carada aragnay baaba aragnay foolxumada aragnay ilmaha dambe generationada dambe Soomaaliyeed inayna waxa anaga aan soo aragnay ayna arkinin walaalayaal dhamaantii meel kasto aad joogtaan ummadda Soomaaliyeed anu waxaan mar walba idin leeyahay xaq u istaaga maxaan mar walba idin leeyahay xaq u dagaalama waxaan mar walba idin leeyahay kulligeen aan wanaag isfarno kulligeen qabyaalada aan qalbigeena ka dhaqno kulligeen aan taraaygareyno ummadda Soomaaliyeed inay dib u madoobaan kulligeen aan dhulka ka gurna dhagaxyada wadankeena oo aan ciideena aan hagaajisano
oo aan calankeena dhaqano oo aan calankeena lagu gafay ka qaadno dhulka oo aan dadkeeni iyo dalkeeni baaba'ay aan kor u soo qaadano aan dalkeena hagaajisano haddaan inagu hagaajisan qolo kale intay noo soo dhoofto noo hagaajinaysa malaha haddaan inagu mugdiga iska saarin qolo kale inoo imaanayso mugdiga inaga saaraysa maaha walaalayaal cadowgeena hadduu hal ahaa maanta waa 100 cadowgeena hadduu 100 ahaa maanta waa 200 cadowgeena hadduu 200 ahaa maanta waa 1000 afarta koona ayay saa nooga soo yaacayaan afarta koona ayay rabaan dalkeena inay ka qaataan afarta koona ayay rabaan inaan isku dhamaano afarta koona ayay rabaan inay isku kaaya dhameeyaan afarta koona ayay rabaan inaan Soomaaliya dib dambe u hagaagin afarta koona ayay waxay ka rabaan maanta dhulkeeni baasiinka tuubooyin dhaadheer in la gashto annagoo taagan tuubooyin dhaadheer saa loogu daadsado annagoo taagan dheemankeeni maalmo baa la gurtaa annagana waxaan qurbaha iyo baalkan ku baabaanay iyo meelahaas qabowga saasa loo dhuuqaya maxay tahay dheemankii dalkeena buuraheena wuxuu ku jiray saasa habeen imaan loogu dhoofaa waxa la wuxuu ku jiray wadankeena gaas waxa lagu fiirsaday diirad sacuudiga iyo carabtii iyo waxa la wixii khaliijaha oo anaga shalaan rutiyaasha awrarka u rari jirnay awrarka ayaan u rari jirnay khaliij carbeed hadaad ogtiin awrarka Soomaaliya ayaa sadaqada u bixin jirtay waxa la siin jiray mataqaana fikrada ayaa lagu bixin jiray fikro ayaa la siin jiray waxa la siin jiray maxay tahay Eid Mubarak ayaa loo diri jiray maantana khaliij carab baa lagu leeyahay khaliij carab dalkeena ayaa ka barwaaqo badan dadkeena ayaa ka wanaagsan laakiin dadkeena waxa lagu sixray qabyaalad la tusay oo cirka laga soo tuuro in kaar qabta ayaa dalkeena saa u dul seexatay oo wax kale ma fahansana oo sixir baa loogu daray oo waxa la cabsiyo dhinac walba laga dhigay ummadda Soomaaliyeed quraan saara dhinac walba waxa la yiri waxa la Soomaaliya looga aasay inayna degin bahal maxaa dhijira sacyo nool aan lagu aasay oo sixir la cabsiyaa lagu aasay waa waxa markaa adoo sii jeeda loo reehel aan leedahay haddii maanta lagu dhahay Soomaaliya nama soo jeesanaysid haddii laakiin reehel lagu waxa u soo jeesanaysaa ma laga sheekeyn karo afarta koono magaalo kamid ah Soomaaliya oo afarta koono ayna kaga aasnayn saco nool islaam baa iiga soo sheegtay carabta waxay tiri Soomaaliya islaam baa noo sheegtay oo dadka wax sheega waxay tiri sacyo nool baa loo aasay Soomaaliya intii la siiyay sixir oo ayaga isku dirtay oo maxay tahay dhulka u diiday dhulkooda inay ka cararayaan Soomaaliya dhulkooda Soomaaliya oo ay adduunyada kale u sii cararayaan oo qof walba raadinayo maxay tahay passport kale inuu qaato oo qof walba raadinayo dal kale inuu dego oo qof walba waxa la wuxuu haysan intuu qaato dal kale ku dhisanayo waana la kabtuur ma maqasheen kabtuurana lagu sameeyay Soomaaliya kabtuurana lagu sameeyay oo waxaana lagu sameeyay wax alla wixii in isku keen diri karay oo waxaana lagu sameeyay in la cabsiyo wax alla wixii aan ku kala fogaan karnay oo waxaana la cabsiyo wax alla wixii dalkeena lagu qaadan lahaa marka meel walba wadankeena yaasiin ha looga aqriyo iyo aayad kursi iyo maxay haytay ilaahow shuushka naga saar war ummadda Soomaaliyeed duceysta walaalayaal duceysta ummadda Soomaaliyeed duceysta walaalayaal wada jeedaan dadkii idinkan ka dhashay oo Soomaalida ahaa oo idan la mid ka ahaa ayaa ajnabi saa u soo adeeg ugu cararaya oo raba inay ajnabi wadankoodii ka gataan oo u cararaya wadamadii kale kuwii idinkan ka inala mid ka ahaa oo walaalaheena oo nala dhashay ayaa wadankoodii lagu taagay oo habeen iyo maalin u taagan wadankoodii inay gubaan kuwii annaga nala mid ahaa oo dadkeeni ahaa ayaa habeen iyo maalin miidiyaha waxay ugu jiraan dalkoodii inay afuufaan oo dhinac walba batrool ka qabadsiiyaan kuwii inaga ahaa ayaan ogoleen laba qof oo Soomaaliya meel wada taagan oo wanaag wada taagan waxaasina waxa la yiri waa waxna inuu ku sameeyay oo Afrika oo dhan ugu sameeyeen adduunkuna ku tala galeen inay nagu qaataan adduunka awalba adduunka waa gumaysan jireen adduunka kale waligood Afrika waa gumaysan jireen laakiin Afrika ayaa loogu tala galay in laba saas intii dhaxda loogu dhufto wadankeena qaarna dhinacaas la raaciyo qaarna dhinacaas la raaciyo waa loogu tala galay laakiin marka la raacinayo ma taqaan waa marka batroolka laga dhameeyo oo barwaaqada laga dhameeyo oo wax walba xataa wadanka hadda waxaan loo ka dhigay abaar meel walba geela jiran iyo xanuun iyo qurun baa lagu buufiyay dadka idin keenaya xataa oo sadaqada idin keenay oo idin iimaanay daawooyin dhacay idin keenan xataa waxay idin keenan daawooyin loogu talagalay ragga wariyaa ragga Soomaaliyeed barnaamij kale ka dhigaya adduun dhana ogahay Allah gacalo inteeda alla Soomaaliya isdaba qabta war Soomaaliya isdaba qabta insha Allah bilmillahi karim walaalayaal barnaamij kale ta ayaan idin soo wadaa oo aad u xiiso badan oo ragga aan ula hadli doono ragga Soomaaliyeed waxay aan waayabana weegar waxa ku dhacay ragga Soomaaliyeed baan jiri ragga Soomaaliyeed iska ayaga is eeganayaan oo ayaga is wada fiirfiirayaan oo ayna waxba warkahayn oo ayna caruur warkahayn oo ayna naag warkahayn oo ayna wadan warkahayn oo ayna dal warkahayn sheekada sister dheer baan idin soo wadaa kowdaha walaalayaal sheekheena aanu dagaalano walaalahay gabooyo kor isu soo qaaday biidmillah
una dagaalamo sheekha oo istaaga annaga dhan waa u dagaalamayna garabkiina nahay arrintaasna ha lagu dhameeyo xalkii oo maxay ta dhaqaneedka iyo diinta islaamka haddii ilaahay yiraaho insha Allah waxaan sugaynaa si degdeg leh inaan warcad ku helno oo wanaagsan waayo tan wax fiican ma aha waxaan hadda la sheegay 3 nin oo isla dhalatay baa la tooganaya hadday xataa Puntland taa sameeyaan ayadoo la ogeyn xataa hadday saa sameyn lahayd waa la isku baabi'i lahaa wax xun oo adduunyada aan laga arkin hal family oo walaala in la wada baabi'iyo la gumaado wax dhici kara maaha walaalayaal dhamaantiin walaalayaal aad u istaaga oo u istaaga dadkiina waxaan idin ka codsanayaa Soomaaliyeed anigoo halkaan ka qayliyo maalba in la hadlay kaliya hadaawinina walaalayaal hadaawinina inteeda wanaaga gudbinaysa idinkuna nala gudbiye istaaga waana waa inaad garab nootiin waa inaad nasiib horeysaan laakiin haddaan qof kasto inaga mid ah oo xaqii dalkiisa ku lahaa uu gudo waxaan aaminsanahay oo wallaahi ah inaan guuleysanayno waxaan aaminsanahay oo wallaahi ah ina dalkeeni iyo dadkeeni ay noqonayaan kuwa ka qiimo badan dadkii hore waayo markii hore wadanka aan joognay saan u gubanay oo dhibaato u aragnay walaalayaal hore uma arag hadda laakiin meel walba ku silcin oo meel walba ku gubanay oo meel walba ku baabaan oo meel walba ku hoogno oo dalkeeniyo waxaan aragnaa cadawuusa uu kala yaacayo oo saas loogu wada galiiliyoonayo oo mid walba leeyahay aniga haafisi walaalayaal ilaahay baan ku dhaariyo kulligiin hadla oo mid walba inta yar aad isleedahay alla ilaahay maskaxdaada intaasaad jecesho ka hadli kartaa ka hadal oo mid kasto hadaadan afka furanin qoraalku gudbi oo facebookaaga wanaaga kaga hadal oo mid kasto hadii aad awoodi karto sidayda kale iska indha adayg oo hadal waayo wuxun haasbin waxba ma qabanayso anigu waag hor waxaan dhigay dadku intay waxay ii soo qori jireen Soomaali baraaya la tagto Soomaali waa la qaatay ma iska aamusid gabaray gabadhay dadkaan iftooda iyo ilkooda iyo afkooda ma iska daysid ma iska aamusid gabaray ma waxaan ka baxay ma ku fiicnaa laakiin waxaan ogaaday wallaahi oo billaahi oo tallahi dadkeena inaan marro u istaagna inay ahayd inaan hadalna marro inay ahayd inaan wanaaga isu sheegna marro inay ahayd inaan inagu xumaha iska qabana inay marro ahayd waxaan ogaaday inaan hadalkii aan hadalnay midnimo qaran inay wax badan bedeshay waxaan ogaaday wiilasha dhalinyarada oo ayaguna u dagaalama wanaaga iyo wadaninimada walaalkeen uu ka mid yahay ninka la yiraahdo iyo dhalinyaro badan oo badan dhamaantood wiilasha wanaaga iyo dawladana u dagaalama wanaagana gudbiya walaalayaal dhamaantood bilow baa kamid ah walaalayaal dhamaantood wallaahi oo bilaahi hadalkooda meel buu gaaray oo hadalkeena meel buu gaaray oo ummadda Soomaaliyeed ay waxaad ogaataan ma qabno loo yaro dalkeeni waa hore dagaal iyo dhibaato aan ku dhamaana 27 inaga wax noo hiilinaya ma laha dadka kale adduunyada waa iska keen daawanayaan haddaan inagu isu hiilin oo inagu wanaaga raadin intuu wanaagu soo baxay albaabka kuma soo garaacay wanaaga aan ahay iga fur albaabka iga fur wanaaga ahay ha ka yaabi wanaaga waa inaa u halgantid wanaaga waa inaa raadisid xumaha waa inaa iska reebno wanaaga waa inaa isu gudbino khaladka waa inaan diidno xaqa waa inaan u dagaalano xaqa walaalayaal waa inaan u dagaalano xaqa marka insha Allah waxaan idinku invite garanayaa kulligiin meeshiina inaa ka istaagtaan oo dalkiina u dagaalantaan walaalayaal waxaan idinku invite garanayaa kulligiin inaan meeshina u dagaalantaan xaqa Allah inaan u dagaalantaan waxaan idinku invite garanayaa kulligiin walaalayaal inaad qabyaalada ka dagaalantaan oo diidaan walaalayaal qabyaalada inaad ka dagaalantaan oo diidaan oo kulligeen si aan u noqono ummad nation laakiin adduunyadan oo kale taa inaga un baa iska dhigi karna waa sida hadda aan dhahay gabooye idinka un baa iska dhigi kara dad wanaagsan idinka un baa proud iska dhigi karo qof kale inkama dhigi karo gabooye ilaa ayagu ay aaminaan inay dadka ugu wanaagsan yihiin oo dadkii Soomaaliya hubkooda soo sameeyeen oo dadkii madaxweyne ku-xigeenka ummadda ugu qaalisanaa lahaa yihiin oo dadka ugu educate garaysan yihiin qofka intaan baxo si kasta oo jecel intaan baxo kuma shubi karo waa inay ayagu aaminaan waa inay ayagu istaagaan waa inay ayagu u halgamaan waa inay ayagu magacooda dhowrtaan dadka dhan qabiilada lagu sheegayo hawiye daaro waxa dhaayga magacyada ayaga qabiilada magacyada soo samaystay ayaga le kor isu soo qaaday ayaga le yirmid walba inay libaaxsan ka taabtaan ayaga le iska faanfaaniyay wariinkuna ma isfaaniyo ma afka la adihiin oo idinkuna kor isu soo qaada oo magaciina iyo qabiilkiina ka caranina oo meesha degantiin qurxisada oo dadku dibadahiina jooga dadkiina wadankii jooga guryaha u dhisa oo kor isu soo qaada please kor isu soo qaada walaalayaal waayo qof kale idin ma soo qaadi karo kadalika dalkeeni ummadda Soomaaliyeed ina inagu kor isu soo qaadno oo wanaaga wada raadina ma ogiye wadankeena intuu qof noo tago inoo ma hagaajinayo wadankeena intuu qol cadaan oo indha buluuga leh intay noo tagaan walaalayaal inoo ma hagaajinayaan waa inaan wada istaagno waa inaan wanaaga wada raadino waa inaan qabyaalada diidno waa inaan kala qowrsanaanta diidno waa inaan kala maxay tahay xaafadaynta diidno waa inaan boqolka calan diidno waa inaan raadinaa nation of Somalia waa inaan raadinaa nation of Somalia walaalayaal dhamaantiinba waa walaashin midnimo jeey waxaan idinkaga tagayaa jacayl aan idin qabo ummadda Soomaaliyeed ilaahay subxaanahu wa ta'aala dalkeena hayno hagaajiyo kulligiina ilaahay
qulbad meesha kasto aan joogno qulubteena ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka saaro cudada iyo xanuunka iyo kala fogaanshaha iyo xumaanta ilaahay ha ka saaro meel kasto aan joogno walaalkay xasan aad baan ku salaamaya meel kasto aan joogno xasan wadani aad baan ku salaamaya waan ku waabriyaa walaalkay meel kasto aan joogno walaalayaal inagu aan u istaagno in aan isu gudbino wanaaga haddana walaalayaal midda ugu xun shiikhaas waa inaan u wada istaagna shalay waa noo jeedaan shaashaa baan u taagnaa alxamdulilah shaashaa waa la soo daayay wariyihii dhalinyarada ahaa ee firfircoona ee u ordayay dadka masaakiinta ah ee samafalaha ahaa waa la soo daayay ilaahay khayr ha siiyo hirshabeelle ilaahay kor ha ka yeelo waxaa leeyahay madaxda sharafta leh iyo odayaasha weliba odayaasha aadka u dadaalay iyo in alla inta dhalinyaraha u istaagtay hirshabeelle noolaada qofkiinana dhulka ha u ogolaanina ka qaada qofkiinana ha u ogolaanina gardarro in lagu xiro mar walbana qofkeena meesha lagu xiro basaasaa u daba taagnaanayna walaalayaal haddana aanu istaagno sheekheena biidnillah sheekh Shamsudiin ha loo wada istaago waa sheekhii ummadda Soomaaliyeed waa ninkii wanaag ummadda Soomaaliyeed raadin waa ninkii dadka gaajaysan iyo kan baahan iyo kuwa gaajada u dhiman iyo kuwa biyo-la'aanta ku dhacday walaal gurmadka ugu jira waa ninkii abaarahaada weydeen Soomaaliya ka dhacay meel walba gurmadka u tagay waa ninkii markay yimaadeen ay soo qaxeen dad in alla intii qof ka soo qaxday aad ogeydeen maxay tahay meeshaan la yiraahdo Yaman maca carabti Yaman ka timid wiilkii u taagnaa waa meel mid ay ilaabi karna ma aha marka kulligeen walaalayaal aan wada istaagna biidnillah waxaan idinkaga tagay ummadda Soomaaliyeed ay isjeclaan iyo loof inaas jeclaataan iyo nabad isjeclaan iyo nabad baan idinkaga tagayaa midnimo dhammaanteen meel kasta aan joogno qabiilka xaraamiga ah oo la tuuro oo walaalayaal traashka lagu daro oo qabyaalada la xun oo cuqdada oo noloo ku dalay sunta noloo ku talaalay oo noloo ku sixray oo aan ka weynaano midnimada iyo wanaaga oo kulligeen aan u istaagno oo aan raadino waxaan dileey walaalayaal gudbiye insha Allah biidnillah ku tuura meel kasto ay heli kartaan si dadkeenu u baraarugaan aad baan idin salaamaya dhammaantiin mid icaaya iyo mid wanaajiye iyo mid waxay soo qorab kulligiin I love you ilaahay subxaanahu wa ta'ala haydin barakeeyo thank you so much waa walaashin midnimo khayr iyo barwaaqo waa tii midnimo qaran maanta halkaan waxaan uga soo galay waxaan rabay inaan la ka hadlo walaalkeen Shamsudiin laakiin biidnillah midnimo qaran barnaamij baan soo wadaa waa hadli doonaa midnimo qaran waa igala soconaysaan aad iyo aad baan idin salaamaya dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan haddaa midnimo qaran nahay walaalayaal midnimo qaran midnimo waa midnimadaadii waa taayadii waa teeni waxaan u taaganahay dalkayga ciidayada calankayga iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan gabi ahaan khayr baan idinkaga tagay barwaaqo habeen wanaagsan gudbiye biidnillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh